laba wasiir oo la aaminsan yahay in xilka qaadistoodu ay miiska saaran tahay ayaa saacadii ugu dambeeyay si weyn loo hadal hayaa. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa daacadnimo iyo dadaal aan kala joogsi lahayn ku hogaaminayay Somaliland muddo sanad iyo 8 bilood ah. waxaana la gaaray guulo aanay madaxdii isaga ka horeysay xaqiijin iyo himilooyin loo soo samreeyay muddo 35 sanadood ah. balse nolosha ayaan dhamaansho lahayn. dawlad kasta oo dhalataana waxa ay leedahay dhaliilo aan gar loogu lahayn iyo dhibaatooyin ka yimaada dhinaceeda. inkasta oo marka dawlad kale ay bedesho dadka Soomaalida ah ay inta ugu badan ammaanaan iyagoo ka marxaati kacaya guulihii hogaamineed iyo hagrasho la'aantii madaxweynahaasi, iyadoo la barbar dhigayo madaxweynihii talada uga dambeeyay ee uu xukunka ku wareejiyay. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo hayay muddo sanad iyo 8 bilood ah talada Somaliland ayna u dhiman yihiin 3 sanadood iyo 4 bilood muddo xileedkiisii ay shacabka reer Somaliland ku doorteen 64%. ayaa waxa uu qaadayaa tallaabooyin muujinaya dadaalkiisa iyo hogaamintiisa iyo sida uu rumeeyay himilo shacabka Somaliland ay in badan soo lahaayeen, taasi oo shantii madaxweyne ee ka horeeyay ay ku guuleysan waayeen. halkaasoo ay shaqo ka socoto ayaana ay kala aragti duwanaan iyo muran ku yaala, taasi oo ah calaamad muujinaysa in tallaabooyin horumardi ay socdaan, inkasta oo lagu kala aragti duwanaan karo dhacdo kasta oo ay dawladdu hogaaminayso ama shacabku ay wajahayaan. laba dhacdo ayaa ugu hadalhayn badan gudaha Somaliland 24 saacadood ee galbaday. dhacdada koowaad ayaa ah saluug dhinaca caafimaadka ay shacabka Somaliland ka qabaan iyo dhacdooyin ka dhacay dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. inkasta oo ay dadku ku kala aragti duwan yihiin dhacdooyinkaasi inay yihiin kuwo lagu dhaliili karo xukuumadda iyo in aanay ahayn kuwo lagu dhaliili karo, hase ahaatee waxa ay ahaayeen dhacdooyin dhaliyay falcelin iyo hadalhayn badan. khubarada caafimaadka ayaa si aaminsan adeegyada caafimaad ee gudaha Somaliland inay yihiin kuwo hooseeya oo la jaan qaadaya marxaladda dalahaaneed iyo meesha ay Somaliland marayso, waxaana ay u baahan yihiin dhisme iyo wax ka bedel badan, kaasi oo lagu saleynayo caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo kan dawladda, iyadoo juhdi iyo dadaal badan ay qaadanayso in isbedelka ay shacabku dareemaan. meelahaas la milicsanayo ayaa ah wasiirka caafimaadka Somaliland oo muddadii madaxweynuhu uu xilka hayay isaguna u igmanaa inaanu aqoon caafimaad lahayn, sida oo kalena ehel u ahayn adeegga uu gacanta ku hayo ee shacabka reer Somaliland in uu siiyo uu igmaday madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. dhacdadii hore ee bukaanada kaliyaha loo maydho ayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu uga jawaabay si miigan, iyadoo oo uu 24 saacadood gudahood ku tagay cisbitaalka weyn, sida oo kalena ka soo saaray wareegto ka farxisay guud ahaanba dadkii cabashadaasi qabay. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay lacag la'aan tahay adeegga dadkaasi loo qabanayaa guud ahaanba. waxa ay ahayd tallaabo xallisay hadalhayntii iyo saluugii ay dadka reer Somaliland ka qabeen caafimaadka dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa, taasi oo noqotay tallaabo lagu kala begsaday. hase ahaatee dhacdo kale oo halkaasi ka dhacday ayaa iyaduna toddobaadkan hadalhayn badan dhalisay, taasi oo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ku riixaysa inuu xilka ka qaado wasiirka caafimaadka ee Somaliland kuna bedelo shakhsi uga waaya aragtinimo iyo aqoon badan dhinaca caafimaadka, maadaama oo ay cabasho badani ka soo noqotay dhinacaasi. dhacdada labaad ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo maalinimadii shalay ahayd hadlay ayaa waxa uu warbaahinta mariyay hadal si weyn uga careysiiyay qaar ka mid ah shacabka Somaliland, kuwaasi oo ka soo jeeda beelaha Ciise, kadib markii uu sheegay ugaaska Ciise in aanu isaga khusaynin maadaama oo uu fadhigiisu yahay magaalada Diridhabe ee waddanka Itoobiya, waxna aanu ka weydiinaynin go'aamada nabadgelyada iyo xalalka laga gaarayo gobolada galbeedka Somaliland. waxaana ay weerahaasi la kulmeen falcelin badan oo ay uga soo horjeedaan dadka Ciise ee Somaliland-darka, kuwaasi oo u arkaya ugaaskoodii guud iyo idmanahoodii oo ay Somaliland ka hortimi. waxaana ay hadaladani noqon karaan kuwo gaasta ku sii shuba colaadaha ka aloosan gobolada galbeedka Somaliland ee aan weli xalka laga gaarin waara iyo rabshadaha ay ka dambeeyaan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha maalinimadii shalay ahayd Djibouti iyo Soomaaliya. lawareedyo hoose warbaahinta xogaal heshay ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha gudaha hadalkaasi inuu dibadda u baxo aanu ku talagelin, balse uu si lama filaan ah uga daawaday baraha bulshada. dhacdada tanna dabdamiskeeda waxay dad badani aaminsan yihiin inay tahay
wasiirka arrimaha gudaha oo haya shaqadii ugu miisaanka cuslayd oo ah nabadgelyada iyo xasiloonida guud ahaanba dalka inuu madaxweyne Ciro u igmado shakhsi kale oo khibrad iyo aqoon dheeraad ah u leh taasi oo ka samata bixin kara Somaliland dabinada ay cadowgeedu la doonayaan